kulan wacan daawade meel walba aad joogto waxaad kusoo dhawaataa janaal kale waaye filmis oo hadana kale aad ugu barateen inuu idin soo gudbiyo warbixinada ugu dambeeya ee la xiriira arrimaha Bollywoodka. Maqaalkan maanta waxaan kusoo qaadanaynaa filmada qiimaha hoose lagu qarash gareeyay hadana guulaha waaweyn ka gaareen box office-ka marka loo fiiriyo lacagaha waalida ah ee ka soo xareeyeen. waa filmo markoodii hore aan rajo guul ah laga lahayn saas awgeedna miisaaniyad yar lagu qarash gareeyay laakiin ugu dambeyn irkaas galay. filmadaas waxaa ku jira atorooyin la aqaano kuwa ay wadaan iyo kuwa aan aqoonba loo lahayn amaba kuwa ku cusub filmada Hindiya. haddaba aan isla aragno filmadaasi. waxa uu hore filimka uu Shahid Kapoor Hindiya ku qabsaday ee koonfurta laga soo minguuriyay ee Kabir Singh. filimkaas waxaa lagu qarash gareeyay 60 crore wuxuuna soo xareeyay 380 crore. waa mid noqday blockbuster. Mission Mangal waa filim ay wada sameeyeen Akshay Kumar, Sonakshi Sinha, Taapsee Pannu iyo Vidya Balan. waa mid guul gaara waxaana lagu qarash gareeyay 32 crore wuxuuna soo xareeyay 290 crore. Chichore waa filim ay wada sameeyeen aktarka geeriyooday ee Sushant Singh Rajput iyo Shraddha Kapoor. waxaana lagu qarash gareeyay 50 crore wuxuuna soo xareeyay 212 crore. waa filim hid weyn noqday. Badayo waxaa jilay aktarka maalmahan guusha u saaxiibka ah ee Ayushmann Khurrana. waxaa lagu qarash gareeyay 29 crore wuxuuna soo xareeyay 134 crore. Stree waa filim ay wada sameeyeen Rajkumar Roy iyo sidoo kale Shraddha Kapoor. waxaa filimkan lagu qarash gareeyay 24 crore wuxuuna soo xareeyay 124 crore. waxaana laga helay 100 crore oo nadiif ah. waana filim ugu horeeyay ee cabsi iyo shactar iskugu jira ee Hindiya ay sameeyeen haddana guul gaaray. Sonaki Titoki Iswiri waxaa filimkaas lagu qarash gareeyay 30 crore wuxuuna soo xareeyay 100 crore. Yuri the Surgical Strike waxaa sameeyay xidiga Vicky Kaushal waxaana lagu qarash gareeyay 45 crore wuxuuna soo xareeyay 244 crore. waana mid blockbuster weyn noqday. Badla waa film ay wada jireen Amitabh Bachchan iyo Taapsee Pannu. waxaa lagu qarash gareeyay 36 crore waxaana uu soo xareeyay 88 crore. Andhadhun waa film kale oo uu sameeyay Ayushmann Khurrana. waxaana lagu qarash gareeyay 32 crore waxaana uu soo xareeyay 91 crore. sida guudna dal iyo dibadna wuxuu soo xareeyay 441 crore. Razi waa film ay sameysay Alia Bhatt oo uu la wada Vicky Kaushal. waxaana lagu qarash gareeyay 40 crore wuxuuna soo xareeyay 158.7 crore. intaas ayaan kusoo afmarinaa warbixintii la xiriirta arrimaha filmada qarashada yar lagu qarash gareeyay haddana guulaha waaweyn gaaray xagga lacagta marka loo eego. waad ku mahadsantahay daawashada warbixintan. haddaad ka heshana la wadaag asxaabtaada.